shidaal ku taala bartamaha suuqa magaalada Gabiley ayaa habeenkii xalay ahayd dab ka kacday cabaar 11 habeenimo iyadoo guud ahaan halkaasi ay ku shufmeeleen gaadiid aad u tiro badan isla markaasina ay soo gaareen dhaawacyo fudud dadkii halkaasi ku sugnaa khasaarahan ka dhashay qaraxa shidaalka kadib markii gaari booyadaha shidaalka qaado ku shubay kaalinta uu dab qabsaday ayaa sidoo kale waxa halkaasi gurmad laxaad ka geystay ciidamada booliska iyo ganacsatada suuqa magaalada Gabiley oo warkacay ganacsada Kaysa Xaaji Muuse oo ku deeqay gaadiidka booyadaha ee kaalintaasi lagu baqtiyay barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Shiine ayaa gurmad laxaad ka galay hawshaasi isla markaasina gaadiidka dawladda hoose ku amray in loo gurmado iyadoo guud ahaan halkaasi soo gaareen damdamiska iyadoo dadweynaha reer Gabiley isku dayeen in badan baqtiyaan balse waxa khasaaraha ugu badan soo gaaray gaadiidka baarkinada la dhigto kaalmahaasi waa markii ugu horeysay ee dab noocan ka kaco guud ahaanba magaalada Gabiley iyadoo saacado badan la baqtiin karilaa holacayo hilaaca halkaasi ka kacay gudoomiyaha gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Shiine oo arimahaasi ka hadlayay iyo khasaarihii ka dhacay kaalinta shidaal ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa nasiibuna waxa uu soo gurmaday dadweynihii iyo mas'uuliyiintii dawladda qaasatan Bileeski iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo dadweyne iyadoo laba booyadood oo nin shacbi u leeyahay runtii aan aad ugu mahadcelinay ninka shacabka booyadiisu ay ka shaqeeyeen iyo booyadii damdamiska ay dawladda hoose lahayd arrintaasi markii dambe waa la xakameeyay dabkii nasiib wanaagna qof bilaadan waxba kuma noqon waa markii ugu horeysay dab noocan oo kale ka kaco kaalmaha shidaalka iyadoo guud ahaan dawladda hoose degmada Gabiley ay leedahay gaadiid damdamis isla markaasina aanay u diyaar garoobin hawlahani isla markaasina aanay lahayn shaqaale u tababaran gaadiidka gurmadka degdega ah waa Nimcaan Dheeg Ibrahim TV-ga qaranka Gabiley.